marmarka qaar waxa wanaagsan inuu qofka iska aamuso inta uu dadka u sheegi lahaa dareenkiisa sababtoo ah way ku sii dhaawacaysaa kaliya goortii aad ogaato inay ku maqli karaan laakiin aysan ku fahmi karin waxaan ka xiran karnaa indhaha waxyaabaha aan rabin inaan aragno laakiin kama xiran karno qalbigeena waxyaabaha aan rabin inaan dareeno aad bay daruuri u tahay inaan xushmeeno dareenka dadka kale kala fogaanshuhu ma baabiyo xiriirka maaha inaad aragto qofka jaceylka idinkala dhaxeeya maalin kasta muhiim ma aha joogitaanka qoloftaada ee waa waxa uu qalbigaaga ku jira dadka inta badan ilmeeya ma aha dad jilicsan oo intu waa sida qalbigaaga u hadlo goortuu bishimahaagu aysan sharixi karin xanuunka aad dareemayso waxaa jiro hadallo aad wax u yeelo qalbiga si ka daran seef lagugu dhuftay waxaa jiro hadallo qofka ku noqda waran ka taagan wadnihiisa ka taxadar hadallada aad dadka kula hadlayso jecelow waxa uu qalbigaaga rabo ma aha waxa ay indhahaaga arkaan ha ka walwalin waxa dadka kale yiraahdaan ama ku arkaan kan waa jecelkaadi ma ahan kooda jecelow ama ka tag qalbi ku dhaawacay balse marnaba adigu ha dhaawicin qalbi ku jecel runtu waa loo ekeysiin karaa dhoola cadeen iyo qosol been ah laakiin marnaba lagama been sheegi karo ilin iyo dareen dhab ah xiriiro badan ayaa burbura sababta ugu weyn ma aha jecelka oo meesha ka maqan jecelku had iyo jeer wuu joogaa mana tago qof ayaa keligii aad wax u jeclaada halka qofka kalena isaga uu iskaga jiro ciyaar iyo qiyaali ha u ogolaanin xiriir hore oo noloshaada ah in uu burburiyo farxadda mustaqbalkaaga nabarka ama xadgintu waa inay ku soo xasuusiyaan wixii aad ka soo gudubtay ma aha halka aad u socoto dadka qaarkii marnaba ma lunto quruxdooda si kasta oo ay u weynaadaan daaduna ugu darsanto sababtoo ah quruxdooda ma aha wajiga ee quruxdooda waa qalbiga qofkii qalbi wanaagsan ayaa ah qof qurux badan